Maldives ama jasiiradaha dalxiiska ee dhaca badweynta Hindiya isla markaana koonfur galbeed kaga beegan Sri Lanka iyo xitaa dalka India. Gumeystigii Ingiriiska ayaa haystay 78 sano waxayna madaxbannaanideeda ka qaadatay 26 Julaay 1965. waa dal jasiirada ah badkiisuna yahay wax ka badan 200,000 kiiloomitir isku wareega, waana mid ka mid ah 10 dal ee ugu dhulka yar caalamka. waa dalka ugu yar qaaradda Aasiya, sidoo kale waa dalka ugu hooseeya marka la eego levelka biyaha badda, wuxuuna biyaha ka sareeyaa oo kaliya 1 mitir iyo bar. waxay khatar ugu jiraan jasiiradaha Maldives in biyuhu qariyaan, waxayna dawladdu dadaalo ku bixisaa in dadka laga raro jasiiradaha sida aadka ah u hooseeya. dadka dalkan waxaa tiradooda lagu sheegaa ku dhawaad 400,000, waxayna ku hadlaan luuqadda Dhaivihi oo shabahda luuqadda Sri Lanka looga hadlo ee Sinhalese. dadka waaweyn ee Maldives boqolkiiba 98 waa kuwa wax aqrin kara, sidoo kalena wax qori kara. carruurta dalkana boqolkiiba 99 waa kuwa laga diiwaan geliyay dugsiyada hoose. dadka dalkan intooda badan waxay asal ahaan ka soo jeedaan Sri Lanka iyo India, balse maanta dhaqankooda iyo luuqadooduba waa mid midaysan. sidoo kale waa dad haysta diinta Islaamka, waxayna qaateen diinta Islaamka sanadkii 1153. sidaasi ayuuna dalka Maldives ku noqday dalka ugu yar dalalka Islaamka. marka ay qaateenna diinta Islaamka, salaadiintii jasiiradaha Maldives waxay isku raaceen inaan faragelin shisheeye la aqbalin. laakiin Boortaqiiskii ayaa gaaray jasiiradaha Maldives wuxuuna ka dhistay xarun ganacsi, balse marka lagu kacay waxay ahayd 1573 markaasi oo uu isku dayay Boortaqiiskii in uu faafiyo diinta Kirishtaanka. haddaba ninka gaarsiiyey Maldives diinta Islaamka waa Abu Barakaad Al-Berberi. ma Moroccan ba mise waa Soomaali? taariikhyahanada qaar waxay aaminsan yihiin Abu Barakaad Al-Berberi in uu yahay Soomaali ka soo jeeda magaalada Berbera, isla markaana dhulmareenkii reer Morocco ee Ibn Battuta uu ka dhigay nin ka soo jeeda qoomiyadda Barbarka ama Morocco. Ibn Battuta markii uu booqanayay Maldives waxaa ka talinayay nin Soomaali ah oo lagu magacaabayay Cabdulcasiis Al-Muqdishaawi oo ahaa reer Muqdisho, Maldivesna u fadhiyay saldanadii Ajuuraan. Abu Barakaad Al-Berberi wuxuu ku aasan yahay caasimadda dalkan ee Mali, qabrigiisuna waa mid la booqdo oo ku yaala bartamaha magaalada. waa dal diinta Islaamka oo kaliya laga ogol yahay, waxaana dastuurka dalkan 2008 lagu daray qodob sheegaya in qofkii ka baxa diinta Islaamka uu weynayo dhalashadiisa, yacni waxaa muwaadin noqon kara oo kaliya qofkii muslim ah. sidoo kale waxaa dastuurka dalkan ku qoran in shareecada Islaamka tahay qaanuunka asaasiga ah ee uu dalku leeyahay. dowladda Maldives waxay 2018 burburisay sanabyo laga dhex taagay badda dhexdeeda, waxayna dowladdu ku sheegtay sanabyadan kuwa aysan diintu Islaamka ogoleen. waxaa hirgeliyay sanabyadan nin badaha quusa oo British ah laguna magacaabo Jason de Cairstyler, wuxuuna ku howlanaa muddo 9 bilood ah. calanka dalkan xitaa waa mid ka turjumaya diinta Islaamka oo bisha dhexda kaga taala waxay u taagan tahay diinta Islaamka. bisha Ramadaan waxaa la xiraa maqaayadaha, waxayna dalxiisayaashu ku qasban yihiin in ay ixtiraamaan diinta Islaamka. laakiin dalku waa mid dalxiis, waxaana booqdaan dad dhaqamo iyo diimo kala duwan huwan. sidaasi daraaddeed waxaa qamriga laga helaa hoteelada iyo goobaha raaxada oo kaliya. waa dal amni ah, faldambiyeedyada waaweynna aysan ka dhicin. guud ahaan jasiiradaha Maldives waa ku dhawaad 2,000 oo jasiiradood, waxayna dadku degan yihiin 200 oo jasiirad oo kaliya. waxaana jasiiradaha la degan yahayna laga helaa guryo raaxo ah, badda gudaheedana laga dhisay, dalxiisayaashana loogu talagalay. midda mudan in hoosta laga xariiqana waxay tahay in maalmaha toddobaadka ee la nasto in marka Maldives la jooga yihiin maalmaha Jimcaha iyo Sabtiga. jasiiradaha Maldives inta badan laguma arko dhismayaasha taariikheed, maadaama dadkii hore ay guryaha ku dhisan jireen alwaax iyo caleemaha geedaha. sababtoo ah cimilada jasiiradaha Maldives waa mid kulul oo ay cadceedu hayso, dhulbaraha ayaana dhanka koonfureed ka mara. taariikhda dowladnimo ee dalkan waxaa ku daabacan qalalaasooyin siyaasadeed. haddaba markii uu dalkan xornimada qaatay 1965 waxay shacabku 1968 u codeeyeen in la baabi'iyo saldanadda, waxaana markaasi madaxweyne loo doortay Ibrahim Nasir.
wuxuuna Ibraahim xilka iska casilay 1978 wuxuuna aaday dalka Singapore balse 1981 ayay maxkamadii xabsi ku xukuntay asigoo dalka ka maqan kadib markii lagu soo eedeeyay lacaga uu kala baxay qasnada dawladda intii uu xilka hayay. madaxweynaha labaad waxaa noqday Maamuun Cabdul Qayyum wuxuuna talinayay 1978 ilaa 2008 wuxuuna ka badbaaday ugu yaraan 3 afgambi oo xilka looga tuuri rabay. laakiin waxaa 2008 doorashada uga adkaaday Maxamed Nasheed oo sidoo kalena noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Maldives yeelato oo ay shacabku doorteen. Maxamed Nasheed waxaa lagu xasuustaa shirkii uu 2009 biyaha hoostooda kula qaatay golaha wasiirada si uu u muujiyo cimilada adduunka ee isbedelaysa iyo qatarta uu dalkiisa ugu jiro in biyaha badda ka sare maraan. Maxamed Nasheed waxaa 2011 ku kaceen shacabka kadib markii sicir barar u dhacay wuxuuna xilka iska casilay 2012 balse asigana sidaasi loogama harin oo 2015 ayaa loo taxaabay xabsi 13 sano ah kadib markii lagu eedeeyay inuu awoodda dawladnimo ku tagrifalay intii uu xafiiska joogay. dambiga ugu weyn ee uu xabsiga ku mutaystayna waa handadaad uu ku sameeyay garsoorka waxaana haatan ah madaxweynaha dalkan Ibraahim Mohamed. dhaqaalaha dalkan waa mid si weyn ugu tiirsan dalxiiska iyo kalluumaysiga waxaana dhanka kalluumaysiga ka shaqeysa 20% oo ah dadka muruqmaalka ah.